iyadoo dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu laalay heshiis horey loogu siiyay dad ku ganacsanaya jardiimada Muqdisho ayaa ganacsato maanta Muqdisho ku kulmay waxa ay sheegeen in cabasho ka yihiin go'aankii duqa Muqdisho ka soo baxay oo ahaa inay ka guuraan muddo bil gudahood jardiimooyinkii horey loo siiyay oo ay sheegeen in iyagu dhulkaas horey ay ugu dhisteen heshiis ay wada galeen maamuladii ka horeeyay maamulka Yariisow. Xasan Axmed Maxamuud oo ganacsatada kamid ah ayaa akhriyay war-saxaafadeed ay ganacsatadu ku midaysan yihiin waxaana war-saxaafadeedku daba joogay hadalkii ahaa in muddo bil ay uga guuraan jardiimada Muqdisho oo ay ku ganacsadaan. Go'aankii duqa Muqdisho oo lagu baabi'iyay heshiisyo hore u kala saxiixdeen maamulka gobolka Banaadir iyo shirkado ganacsi. Waxaan saxaafadda la wadaagaynaa inaan cabasho ka nahay go'aankii ka soo baxay xafiiska duqa Muqdisho. waxaana codsi u gudbinaynaa madaxda qaranka ugu sareysa inay tixgeliyaan cabashadayna annagoo aan ka helin maamulka dawladda inayna tixgeliyaan oo aan nimaado xafiisyada wada hadalna aan loo fasixin oo kaliya aan meediyaha ka maqalnay waa la idin duduminaya. sidaa darteed waxaan doonaynaa inay heshiisyadii hore dawladdu ay tixgeliso ama ay amraan in loo celiyo hantiyadii galay dhismooyinka qaaliga ah ee ku fadhiya malaayiinka dollar. waxaan nahay ganacsato Soomaaliyeed oo ku soo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii dalku soo maray. waxaana ku soo shaqaynay duruufo middan ka adag. waxaana way arag u nahay kartina u leenahay inaan hanti iyo naf iyo maalba aan riski gelino waana duruufihii dalku ku jiray. waxaana aaminsanahay qadarta iyo awoodda Alle. waxaan ka jawaabaynaa 30 beri ku qaata waxa idinka yaala goobaha Soomaaliya dhisme ma la qaadi karaa oo ka mid yahay guriga hadda aan ku qabinayno shir saxaafadeedka. sidaa darteed waxaan doonaynaa inaan shaqaysano oo ummadihii aan u shaqay jirnay iyo customerkeeni ay hawshayni noo socoto. hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan u qaadanaynaa inuu ka soo horjeedo heshiiskii iyo qoraalladii noo kala qornaa. waxaan baaq u diraynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dawlad iyo shacab rag iyo dumar inaan wada ilaalino heshiisyada qoraalka ah ee maalgashi ee u qoran shirkadaha dalka iyo kuwa dibadda ka yimaada intaba. qaar ka mid ah ganacsatada oo iyaguna kulankan ka hadlay ayaa ayiday war-saxaafadeedka iyagoo dhanka kalena dawladda federaalka ugu baaqay inay soo farageliso go'aanka duqa Muqdisho oo ganacsatada ka qaatay. waxaan isleeyahay ganacsatadii Soomaaliyeed oo u soo dhabar areegta dalkan oo marxalad kasta dalkaanu soo maray ku soo shaqaysay ma mudna in xoog lagu jabiyo ma mudna. waxaan ka codsanaynaa dawladda madaxweynuhu u sareeyo wax kasta hadday xumaadaan isugaa mas'uulka ah hadday wanaagsanaan isugaa mas'uulka ah. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa arrintan soo farageliyo in wax la dumiyo waxa ka habboonaan islaana in wax la dhiso. waxa ogtihiin dhulkan dhismooyinkan lagu sameeyay waxay ahaayeen dhul dirti oo wasaqda la dhigo oo baahala galeen oo dadka dhibaatay ay ku dhex jiraan. maamulkii markaas gobolka maamulaya iyo ganacsatada ayaa waxay isla garteen in la maalgeliyo oo heshiis lagu sameeyo. heshiiskaas dawlo marna heshiis waa geli kartaa marna waa ka naqan kartaa laakiin waxaan isleenahay wadiiqooyin badan u baahan yahay oo inay ku degdegin aynan lagu degdegin in wax la dumiyo. Cali Aadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.